mar haddaan dee soo fadhiistay baryaha waxaan ka maqlaa miidiyaha haddaan soo fadhiisanay ilaan aad u yar dhaadhacon wax faraa yar geliyo oo laga maarmaan waayo waxaan doonayaa baryaha dambe soo socotaa inaan aad uga fogaado miidiyaha waxaan jeclaan lahaa inaan erey idhaahdo ree awdal laba qodob inaan idhaahdo qodobka waxa weeye halkan maalmaha waxa socotay waan galaynaa iyo geli mayno waxaan rabaa inaan halkaa yar iftiimiyo niman yahow garoonkaa ku ciyaaraysaan kubadda noocaasa ee doorashaan gelaynaa iyo ma gelaynaa bira male gool laga dhaliyo garoonkaasi waa bilaa gool garoonkaasi waa bilaa daawadayaal garoonkaasi waa bilaa siidhiwale bigoos lamaba kala badinay waxaan loo kala badinay dalkaba doorasho kama dhacayso waa aragtidaydu shakhsiyan qof ahaan anigu waxaan qabaa Somaliland doorasho dambe oo muuse dawladii la qabanayo oo dad loo kala tirinayo hebel baa badi la oranayo aan xaqeega ma jirto rag badan baa wax doorasho qaabka xukuumaddan wuxuu wato maalmii hore 6 bilood markuu madaxweynaha xilka hayay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranku ayaa runtii anigu aan ka hadlay arrinka sidoo wuxuu dhisay dawladdiisa sidoo wado qaabkan hadii shir doorashooyinku waxba looga hadlayo waxaan qabaa anigu adeer 6 bilood markuu joogana waa sheegay dadkoo dhanna waxay saadaalinayeen sugayeen war muddo la siiyo laakiin waa iska sii hordhacay wali halkii baan taaganay waxaan qabaa يعني marka macaarad furno ku daray laakiin waxa ku daray maaye laakiin waxa taagan doorasho inaanu madaxweynaha qabanin therefore ree awdal waxaan leeyahay war hay ku dawaqina waxaan dalka ka jirin bilaash ma soo jiidanaysan laakiin adeer mid baan ku dari lahayo adoo iga raali ah reer awdal waxaan ka rabaa afar qodob inay ii kala saaraan afar eray yaan iska qaltay kow reerkana diriska Naysaaq reerkan ballaaran ee isaaqeen dariska nahay iyo madaxweynaha keliya Muuse Biixi Cabdi yaana iskaga keenlaaqmin waa kow waa laba qodob labada qodob kale waxa weeye dalkan Somaliland waa dalka iyo dawladda yar ee Somaliland ka dhex dhisanay yaana iskaga keenlaaqmin haddaan inta kala hadal yeelka waa la cadeeyaa haddaynu inta kala cadeyno waxaynu kala hadhaynaa hebelo markaynu waxba jira waxba dhiman ilaanaba soo booda oo ina yiraahdo annaga idinka badan oo ina yiraahdo annaga u soo dagaalanay oo ina yiraahdo madaxweynihii 8 sano madaxweynaha hayeen maxay doonayaan oo aanu aqaano xinif iyo hebel aan dhaamin xinif iyo waxaan dhaamin hebel aanu aqaanadeen xinif iyo waxaan dhaamin aanu aqaano ayaynu kala hadhaynaa dabeedna waxaanu isgaadhaynaa dad badan oo aqliga sida fiican u isticmaala oo reer Somaliland oo dee laba jeer bay loo heeliya كو أنبا إنه هيليا إن يلاذا ذير يعني إن يلاذا دد عقل جسده فعله استعماره دد قرن يبدل يدد كمان من نمذو تشعل دد بريء ما تأكل صعنتها أو دلك كبو حين هلي وإنه هيلنا يان أيضا وحين ورنا يان ورواس صح دد كني عم بوس كان قرب تاجي يانو ده وحين ورنا يروح على وطني وخلده كجوك سده marka si aan dadka u gaadhno waa inaan afarta qodob kala cadeyno saaw kala iftiimina ayaan qabaa waliba waxaan jecelahay isfaag halka mardan gaadhay inaan afarta qodob aan isdul taago yar kala iftiimiyo markaynu leenahay reerka saaq markaan leeyahay waa dad aynu darisnahay waa dadka aynu jaarkanahay waa dad weligeen jaaranahay ilaa siidhiga la fuufo waa dad aynu isku nahay wax bini aadmigu isku yahay oo dhan wadada gacalnahay wadada xididnahay wadada dirisnahay wadada wax wal abti gacal xidid wixii binaadmaas ku dad isku nahay way wadad jaar wanaagsan wadad saaxiib fiican wadad majir aynu booda buuxino masaajidooda camirno dee isaaq iyo inagu kala maarmayno mana kala tagin waliga waxbaan isku aanana waliba inoogu sii dhow iyaga qulooda in si kala xigo yadaan siyaasad laga hadlayn waan kala garay iyagu si kala xiga halkan iyo dhig adar midigta ha iga daarin isma taarno maradeen isma gaadho intay gudahooda isku geystaan iyo inta gudaheena isku geysano ayaa ka badan inaga waxayna kala gaar halkan midigta soo dhig markaan ninkan kala saaraya isaaq iyo musabbix tahay musabbix taban kale madaxweynaha qaranka maanta waan islaafnay hadaa maqli jirteen hebel madaxa yar xanoo islaafay in macnaheedu tahay hebelu islaafay oo dawaqay oo xanuunsanay musabbix iyo raawad waa islaafeen automatically waa islaafeen way islaafeen soo maqal inaga waa islaafnay dabadeedna inaan wax ka sheegnay inaan wax ka diidnay wax ka ogolaano inaga way banaatay halkan bidixda dhig ha iga darin isaaq iga darin Somaliland iyo dalka Somaliland dawladda Somaliland ee kala saaro war dalkan anaale dalka Somaliland leeyahay anaale cidna martuuga ma yihi
bari ilaa galbeed baan soconaya nabadiisa ammaankiisa ka shaqeynaya geed kasta waa laga talin karaa geed kasta waa laga talin karaa de waa dalkaygi cidna martuugamay nabadiisa ka shaqeyn xilkiisa saaran dhig halkaa isaaqaad dhigtay dhig snow midigtay soo dhig dawladdeena Soomaaliland lama wada laha dawladdeena reer Soomaaliland maanta jirta lama wada laha taadhish kuma jiro dalka la wada leeyahay dawladdan lama wada laha dabadeedna adeer markaad eegto qaab dhismeedka xukuumaddeena dhowr jeer horena waan ka biyadhiijinay ilaa gunbaanu ka sheekaynay adeer mid la wada leeyahay ma weliba markaan halkaa hoos uga sii dhaadhiceysa aan biyadhiijintaa ku noqdo dadka ugu liiteen dalka dawladda waxba ku lahayn waa kow qabaylka markaan eegno waa ciise hal qof oo maanta qof yaroo dhakhtar tagay oo Hargeysa jooga lagu martigeliyo ma jiro reerkii warsangeli ee dadka dhaqanka fog lahaa ilbaxa ahaa garaadada lahaa ma jiraan gabooye ma jiro gabooye geed walba nala joogay dawladda kuma jiro dawladda adeer waxa ka maqan reero badan oo magacooda aan laba soo qaadin oo dalka degan dawladdan waxa jooga oo shinni ay tahay iyaguna reerahii dhulbaante iyo agada bursigu teel shinni bay u joogaan adeer dawladda noocaasa la doonaya doorashada daran laga galo yaan lagu dawaqin 10 iyo 5 iyo 10 xildhibaan iyo 20 xildhibaan iyo war dawladnimada la wada yeesho dawladnimada hadii la wada yeesho adeer doorashada si simple loo gali raawda lix xildhibaan bay ku galayaan 10 baa ku galayna 20 baa ku galayna laakiin dawladnimada la wada yeesho dawladnimadu doorasho ma baahna qalinka musabbix bay ku xidhanta musabbix baa hayo maanta cadaalad iyo qaranka ma ha baarlamaanka iyo doorashada la galaya ma madaxweynuhu ha u gar qaado qalinkiisa iyo isagoo isku qaadan marka taa xaqeeda iyo cadaaladeeda la helo dalka doorasho way ka dhici kartaa waan gali karnaa laakiin inta musabbix cadaalad darro qalinkiisa ku sameeyo waa yani ummadda sax xagatii haya ciyaadiya doorasho gasho macnaha sameeysan garan maayo macnaha doorasho waa la gali dalka u baahan dadka u baahan lama qabanayo madaxweyne biixi ma qabanayo saasaan u qabaa war ra'yigaygi waxaan leeyahay adeer oo ku celcelinayaa madaxweyne adiga iyo qalinkaagu isku cadaalad sameeya kursigaaga iyo adiga isku cadaalad sameeya intii naas doorasho wada gala doorashada qalinkaaga iyo adiga iyo kursigaagu gala qalinkaad cuma haysa siita waa ma sii tiraadar